kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilhaantiin meel walba oo dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan markaasi wararka caalamka kuwada ugu door corona qodobada aan idin hayo daawadayaal waxa ka mid noqonaya hadoo Rabbi idmo markaasi Ruushka oo Mareykanka ku eedeynaya dhunta kaliya ee markaasi shidaalku uu gudbiyo midowga Yurub oo markaasi uu tilmaamayo in la bartilmaameysanayo Sacuudiga Arabia oo markaasi ku dhawaaqday iyadana in markaasi ay doonayso in ay sameysato bacriminta iyo sidoo kale iibinta uraniumka oo markaasi muhiim u ah dalkaasi sidoo kale Greenland oo iyadana ka hadashay doonista Donald Trump iyo waxyaabaha ay ka yeelayso waxaan sidoo kale idin hayaa barakaca Haiti oo markaasi laga deyranayo iyadoo 3 jibaar dadkii sanadkii hore ka kacay ay haatan leeyahay way barakacayaan qodobadaasi qodobo kale oo muhiim ayaan daawadayaal idin ku haya barnaamijka wararka caalamka haddii aad ku cusub tahay markaasi nagu soo bir oo subscribe sar sidoo kalena waxaad share gareysaa oo saaxiibada gaarsiisa wararkeena haddii aynu ku bilaawno markaasi Greenland waxa ay ka hadashay arinta ugu muhiimsanayd ee doonista Donald Trump iyadoo sheegtay in ay la shaqeynayso Donald Trump ayaa horay waxa uu tilmaamay amaba sheegay in uu markaasi si xoog ah military ahaan uu ku qabsanayo Greenland oo markaasi Denmark boqortooyadeeda ay maamusho waxaana arintaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ninka lagu magacaabo Mute waxaana tilmaamay in dalkiisa diyaar u yahay in uu la shaqeeyo madaxweynaha cusub ee Donald Trump ee 20 bishan Janaayo markaasi xilka lagu wareejin doono loona dhaarin doono waxyaabaha markaasi uu ka hadlay waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu tilmaamay in biomushtarka iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka ay markaasi kala shaqeyn doonaan Donald Trump balse aysan jirin dagaal markaasi dhexmara Denmark iyo sidoo kale Mareykanka Ruushka iyo sidoo kale China ayaa iyadoo laftigeeda arintan waxa la leeyahay indhaha ay ku hayaan maadaama goobtaasi ay tahay goobta ugu muhiimsan sidoo kalena Mareykanka laga dhibaateyn karo waa sida dadka qaarkood ay qabaan arimaha ugu muhiimsan markaasi Greenland waxa kamid ah in markaasi Donald Trump uu doonayo in si xoog ah uu ku qabsado balse haatan waxa la leeyahay waaba fududahay arinta ugu muhiimsan waxa ay tahay marka meesha ay ku taalo Greenland ayaa waxa ay tahay meel istiraatiijiyad ah oo markaasi Mareykanka dhibaato looga geysan karo sidoo kalena wadamada quwadaha sida Shiinaha iyo Ruushka iyo wadamada kale ee markaasi doonaya in Mareykanka dhibaato u geystaan ay u fududahay in markaasi ay tagaan waxayna u dhaxaysaa markaas sida dadka qaarkood ba ay tilmaamayaan Atlantic iyo sidoo kale deegaanka kale ee badda ah ee lagu magacaabo Arctic waana meelaha ugu muhiimsan ee markaasi haatan la iska ilaalinayo haddii marka uu la shaqeeyo Denmark Mareykanka sida rabtana u sameeyso waxa meesha ka baxaysa markaasi damci markaasi in xoog lagu qabsado Saudi Arabia waxa ay ku dhawaaqday markaasi in ay qorsheynayso tayanta iyo sidoo kale iibinta uraniumka oo markaasi dalkaasi muhiimka ah Sacuudiga ayaa markaasi doonaya arintani iyadoo markaasi wasaaradda tamarta ay ka hadashay wasiirka tamarta Amir Abdulaziz bin Salman Al Saud oo markaasi shir ku qabtay magaalada Tehran ayaa waxa uu sheegay in talaabadani ay tahay istiraatiijiyad lagu doonayo in lagu markaasi xareeyo dhammaan macdanta dalkaasi uu leeyahay sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Reuters waxa uu tilmaamay in markaas Saudi Arabia ay noqonayso wadan qani ah sidoo kalena ay ka baxayso markaa gumeysiga lagu hayay iyadoo inta badan arinta ugu muhiimsan ay tahay horumarinta barnaamijka nuclearka ee markaasi dalkaasi Sacuudiga Arabia ay doonayso inay sameysato marka Sacuudiga ayaa marka horay boqor Salman waxa uu tilmaamay in ay doonayaan in hubka nuclearka ay sameystaan haddii Iran aysan ka laabanin markaasi qorshayaasheeda ay ku horumarinayso arinta nuclearka waana arinta ugu muhiimsan haatan wadamada dunida ay isku dayayaan iyadoo dagaalka ugu badan haatan uu ka taagan yahay arimaha nuclearka Ruushka waxa uu Mareykanka ku eedeeyay in markaasi iyadii Ukraine ay ka qayb qaadanayaan sidii loo burburin lahaa dhunta kaliya ee shidaalka u gudbisa midowga Yurub Ruushku marka arinta ayuu ka hadlay waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in markaasi ay ka fiijignaadaan
Mareykanka iyo sidoo kale aysan isku dayin Ukraine in ay dhuuntaasi dhibaato gaarsiiyaan. Ruushka ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu doonayo inuu waxyeeleeyo markaasi dhuunta kaliya ee lagu magacaabo Turk Stream oo markaa dhuuntii ugu dambeysay ee gaaska ee Ruushka u dhoofisa Yurub ay tahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa shir jaraa'id ku qabtay waxa uu sheegay Washington inay dhiirigelinayso in weeraro argagixisada ama markaas argagixisada wuxuu yaqaanaan in Ukraine iyo kooxaha ka dagaalama wadalkaasi inay ka qayb qaadanayaan arintan oo qarash iyo lacag iyo dhaqaalaba uu gelinayo sidii haantaasi dhunta ah loo burburin lahaa. Wuxuuna tilmaamay in arinta ugu muhiimsan ay tahay in la joojiyo hadii lagu dhiiradana ay dhibaato badan keeni karto Mareykanka uma dul qaadan karto markaasi tartanka dhinac kasta ayuu yiri Sergey Lavrov oo markaa arinta ka hadlayay. Wuxuuna tilmaamay in taxadar la'aanta iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada xasilooni kala sii abuuri karto. Wuxuuna tilmaamay in Mareykanka aysan ku dhiiran arintaasi. Haiti iyadana waxa ka taagan arinta ugu daran oo ah in dalkaasi ay ka taagan tahay dhibaato iyadoo dadka barakacay ay gaarayaan in ka badan 1 milyan oo qofood. haddaba Haiti waxa la leeyahay magaalada waxa qabsaday burcad kuwaas oo doonaya in xukunka ay ka tuuraan dadka hadda maamulaya. waxaana halkaasi loo diray qaramada midoobay ciidan oo ka socda oo markaasi Kenya ay hogaaminayso balse magaalada gudaheeda ee lagu magacaabo Port waxa ay haysta inteeda ugu badan kooxaha burcadda ah iyadoo dadku ay tahay in la dilo la dhaco sidoo kalena barakac loo geysto. waxa la leeyahay dadka ma haystaan caafimaad oo goobaha caafimaadka ayaa la burburiyay sidoo kale waxbarasho aysan haysan waxa ay ku nool yihiin nolol aad u adag sida wararka qaarkoodna ay soo tibinayaan. booliska dalkaasi ayaa laftikooda arintan ka qayb qaadanaya. Mareykanka iyo wadamada qaarkood ayaa markaasi qaramada midoobay gaar ahaan laanteeda amniga waxa ay u gudbiyeen in Haiti loo diro markaasi ciidamo aad u badan oo markaasi qaramada midoobay ka socda balse arintaasi Shiinaha iyo waxa ka soo horjeestay dalka Ruushka oo tilmaamay in booliska Haiti la dhiso ay tahay halka ciidan loo diri lahaa. guud ahaan intaas ayaa ku soo gabagabeynaya warka caalamka. haddii aad qaybtan dambe nala soo gaartay daawade waad ku mahadsantahay daawashada la socoshada wararkeena. haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar oo nagu soo biir saaxiibadaadana gaarsiiyo.